السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan kala hadlo tracking insurance-ga. Suuqa tracku hadda waa fiican yahay. Normally marka suuqa uu fiicnaado, Soomaalidu aad bay ugu yaacdaa DOT-yo cusub bay soo furtaan. DOT-yadaas cusub markaa waxaan arkay dadku siib koodhiyo khatartoodu ay aad iyo aad u sareyso oo DOT-yo aad u fara badan oo kumanyaala ay ka furan yihiin bay ka soo furtaan. Marka insurance-gooda aad iyo aad buu qaali u noqdaa. Horta waxaa loo baahan yahay qofku inta aanu iska soo furanin DOT oo simply because hebelba uu soo furtay oo soo furo aanay noqonin, qofku inuu marka hore xoogaa research soo sameeyo, traininno uu soo fiirsado waxyaalaha horta looga baahan yahay DOT-ga lafteeda dee si u maintain gareeyo businesskaas. DOT-ga cusub ee uu soo furtayna inay long termka ay horta u sii jirtaa loo baahan yahay, markiiba inuu ka xidhmo looma baahna. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay waxyaalaha saameynta ku yeelan kara sababi karaya inuu ka xidhmana inuu isagana iska soo fiiriyaa loo baahan yahay. Waxaa kaloo loo baahan yahay DOT-gan inaad ilaaliso. Dabcan businesskaagii baad ilaashatay, laakiin also waxaad ilaalinaysaa sumcadda industry-gan iyo si gaara weliba sumcadda dadka Soomaaliyeed ku jira. Dhibaato weyn baa lagu qabaa. Ta aan maanta markaa rabo inaan ka hadlo waxaa weeye siib koodhka aad ka soo furanaysaan muhiim buu yahay. Insurance-ga saameyn buu ku yeeshaa. Meel khatar badan oo saxmad badan oo xaafado dhexdooda haddaad DOT ka soo furtaan, insurance-gu horta aad buu qaali idinku noqonayaa, because meesha waxaa laga yaabaa xatooyada ku badan, baabuurta muxuu ahaayey waa lagu dhacaa. Taraaga laftiisa waxaa dhici karta inta uu meeshii gelaya xataa shil inuu galo. Waxyaalo fara badan baa markaa ayaa sabab u noqon kara insurance-gu inuu aad iyo aad qaali kuugu noqdo. Simply markaa waxaad samaysaan waxyaalaha aad markaad research-ka sameynaysaan waxaa ku darsataan address-ka aad ka soo furanaysaan. Meel magaalada ka baxsan oo safe ayaa laga soo furtaa. Literally UPS address ayaa meel fiican aad ka soo furan kartaan. Sidoo kale garaging address-ka, garaging muxuu ahaayey zip code address-ku xaafado magaalada ka baxsan ayaa simple waxaad la soo keli kartaan lease agreement. Lease agreement-igaas monthly waxaaba dhici kartaa $100 iyo wixii lamida, maybe 150 hadda kor bay u kaceen in lagaa qaado. Laakiin bishii waxaa dhici karta maybe 300 inuu insurance-ga dhinaciisa uu kaaga safe garo. Maxaa ku ogaan kartaa waxyaalahan oo dhan? Dee simply again waxay dib ugu noqonaysaa inaad wixii businesskii intaydan madax aydan isugu tuurin aad research soo samaysaan si Soomaalida sumcaddooda aad u ilaalisaan, kambanigana aad u ilaalisaan. Kambanigu waxaa laga yaabaa an average Soomaalidu kambaniyaashu 2 sano way ka xidhmaan. Taa marka aan ka feejignaano aad baad u mahadsantihiin.